waxaan runtii aan idinkaga mahad celinayaa waqtigiina qiimaha badan mudan ra'iisul wasaare maantay waxay ii tahay maalin xasuus gaar ah igu leh maadaama aan si rasmi ah u wareejinayo taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed marka hore waxaan u mahad celinayaa Allah subhanahu wa ta'ala oo intii aan mas'uuliyadda hayay ii fududeeyay in aan u adeego qarankayga iyo ciidankayga intaba bulshadeydana aan si hagar la'aan ugu qidmeeyo mudan ra'iisul wasaare muddadii aan xilka hayay waxaan runtii si weyn ugu shaqaynay aniga iyo saraakiil xigeenada iyo alifleyda iyo dableyda ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ugu adeegnay ugu qidmeynay si hagar la'aan hakasha la'aan ah ummadda Soomaaliyeed waxaan runtii ku faanayaa maantay oo aan halkan xilka ku wareejinayo ugana mahad celinayaa madaxdayda qaranka in ay siiyaan fursadii aan ugu adeegayo ummadayda runtii dib u habaynta ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxaan sidoo kale runtii aan kor u qaadnay tababarka tayeynta iyo xirfadaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed anagoo la kaashanayna wasaaradda gaashaandhigga iyo madaxda qaranka waxaan sidaas oo kale xoojina anshaxa iyo sare u qaadida sareynta sharciga oo runtii lafdhabar u ah institution inuu dhismo runtii waxaan sidaas oo kale mar walba noo ahaa yoolasheena koobaad ilaalinta hantida ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo noo aheeda yool gaar iyo target gaar taasoo aan aaminsanahay runtii in aan si fiican ugu guuleysanay meel wanaagsan aan soo gaarsiinay waxaan sidoo kale abuurnay muddadii aan xilka hayay runtii oo aad iyo aad runtii aan saaxiibadayda garabkayga taagnaa saraakiil xigeenada alifleyda iyo dableyda ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed baan uga mahad celinayaa wada shaqaynta hay'adaha amniga oo runtii aan aaminsanahay in ay qayb ka qaadatay amniga guud ee maanta aan ku naaloonayno mudan ra'iisul wasaare muddadii aan xilka hayay runtii waxa inoo suurtagalay arrinta reformku ma ahan arrin hadda soo bilaabatay sida la socotaanba waa arrin soo bilaabatay 2018 maalinba marxalad ayay joogtay waqtigaygii dambe hadda markii aan soo laabtay anigoo kaashanaya saraakiisha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed qaybahooda kala duwan waxaan aad iyo aad u dardar gelinay sidii arrinta reformka oo dhinacyo kala duwan taabanaysa aan u xoojin lahaynay arrinta dhinaca personalka marka laga hadlaayo waxaan kala saarnay personalkii ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed qaybihiisa kala duwan ayadoo ujeedadu tahay in la helo ciidan hawlgala guda kara waajibaadkiisa gaarina kala yoolashiisa arrinta ayada waxaan ciidanka u kala saarnaa hawlgab naafo shuhado iyo habsan